koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan saad u hesho xubinta kalamaan maalin walba fadlan subscribe sar page-kan Dulmidiid Media kulunkeena waaye kabiirka ku jira waa la kasaa kulunkeena waaye kabiirka ku jira waa la kasaa warniyo karimiyo hadlaya mise uu barooranaya wareede xalayta waxa ka wadajuun waxay tiri qarniga gumaysto waa qoriga liifkiisa ma aha qaabadii hore hadda qoladii baarliini qalin baa qarwaantii bedelay qax ka baxayay qorshoodu waa qabo qaliyo qaadan kari waaye waqafkii damir labeen qof falgaliyaan qurba joogti waa lagu ogaa qiro laba wiige ay qodqodina waxaan qabo ma ogid oo qarsanayay war ingiriiska markuu madaxweyne Trump tagay mar hore ay maxad noo sheegaysaa maanta war 26 June wili lama gaarin warnamiyo aan abwaanku waa liyaabi qurba joog baan soo raraya baawur mugiisiye haani loo dhibaato ka qabnaniyo haano ka hanin qorto abwaan war shiiluhu wax waliba way koobiyeen balse TikTok bay dhibaato ka haysataayo indhihi waaweynaa dadka kale ay koobiyiin war qoodi ma loo geeyaa ku baraatikayaane war anagu 26 June bir hore ka baxnay 18 May ayaan Hargeysa ilaa Soomaaliland oo dhan ka xusnaaniyo war maanta waxa Hargeysa ka dhacay xusma ahayne nin baa maxkamad tagay oo wuxuu yiri afar dumar ah baa kufsaday war hablaha ninka ku kufsaday Hargeysa ma waxay waarayaan hablihii gaalka lagu kufsaday waaraya war adeer kaasi wuu walaaye irna muu joogin dhul muu jooginay dhakhtarka hal geeyaniyo warnimada waxa la yiri rati cararay waa lagu yaqaan buubka waligiisa oo qooqan waa lagu yaqaan dumar amaantooda nin la doortay waa lagu yaqaan inuu mashquulay oo albaabkana xirtaa jiidna gooyay haduu macallin saxsaxashiye jiif ka bixi waayo ama uu wareego arlada gelinba meel aado qalad ma aha goorta ardayda inay ciyaartaay caruur hooyadood maqan tahay waa sidoo kale warnay aboo geelaya waad u wartaa war gudoomiye yariisow mar hore uu ka hadlay kala wareeg iyo wadooyinka xiran waxa uu yiri askarta markay baabuurta u yimaadaan kala wareegay sadeen habaaren warnimayo jaawararkii siyaasadeed ee galmudug xaquu maraya war galmudug maxay jaawarar u galwaysa dhuusa marab waxa iskugu tagay nabadii nolol waxa la wixii Facebook ku qaraabin jiray iyo madaxweyne xaafad hanaaqsan war galmudug ani warkiin ka ay dhagansoy iyo gool aranta maraasa ya kaambiilin shal dhagaagi marka kaambiidiya ka jiraan war wax kaambiileeyra ma jiraan xaafadiidina qarafaan la kulmo war madaxweyne xaaf dhuusa marab haduu ka baxay beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay arinta galmudug in il gaar ah lagu hayo lana soo farageliyo warnimada galmudug waan aragnay tolo Jubbaland macal maxamuud oo kale ma laga heli doona war waxa la yiri shiileeyda maansada mar baan eray ka sheegay tixan waaye badan sheelayaan shaaca ka cadayne adduunyada waxa ugu shar badan shiiq siyaasi ah shaydaanka ma ooyay ma jiro ruux shabaaya waxa loo yiri dameel la'aan xaasha maduusho duruur la'aan roob ma daan yiri warniyo kana miyo gabayaya warninka qowdina hadibsan aqoonsiga Soomaaliland uu raadinayay warnamayow uumalankii ee jeelad yirman waayto lari lankii neebtana qatal man waayta la jooji bi'alan lijifi binaa ku dhidi galmudug waxa ka sheekeynaysan hiiraan kama jiraan xayartu waxay ku daaday kaambiyo wari dabageedna waa lusu keenay laayahay war militariga Soomaaliya hawlgalay shabeellada hoose ka wadaan hadaa shalay ogeedeen inay markad deegaano hoos ay xoreeyeen maantana baraaw deegaano u dhaw ay qabsadeen war ma waxa weeyaan ninba tacabkii talay kaamal warnamiya war mooshideena ni warsiin haaye meelilay mooda baydhaw iyo buura kaban dhehayta ya baabur miina kala kati oo saraakiil wada mayna ka dhimaday tumani go qofood oo lan koreeyay marka mayleeray maynin yaali magaalka ay tisaha madawiinaha koonfur galbeed langeli leey lafta garan xamar yoonay baydhaw jinaa iska fura qashin ku la sheego inoo meelika biyona walka fade war madayow nabada naas la nooga lahay ma been bay noqotay waraasi waalidii meel kasta rooganiyow war yaareen wuxuu inuu umad yahay qabyaalay nafsi dhiig wada qaaday umad yahay shayo qalbiga u gashay qoolka umad yahay qabyaalay nafsi dhiig wada qaaday umad yahay kuwii qaybin jiray daba
qamaamaysa ummad yahay qaxoontiga ah ee qaaradaha daadsan ummad yahay istaba qabaninee qolaba meel oodan qosol laguma helo qaran haddaad igu qancaysaane haddii uu askari yahay qabiil qaran cari sheega war nin kastoo musharaxa markuu baarlamaanka hor tago wuxuu yidhaahdaa waxaan soo xaraynaa qaxootiga dibidda ku maqan waxaan soo xaraynaa qurbujoogta dibidda ku maqan dadka gaajaysanan quudina waxaas hore aan u daalnay war naga tag waxba kama ogide doorashada 2022 ergadii xildhibaanada soo xuli lahayd haddaa siminaaran la sii siiya war ergadaas xaaf ma ku jira war nin abwaanaha maqlay doorashada wuxuu yidhi kalka doorashada kooxi iman koororsidataa kalsoonina shacbiga kama rabaan kamana haystaan kursigiiyo xilkay doonayaan inay kiraystaan marka magacii doorashada kiraa lagu bedelay warnimada war mahaysan Itoobiya afgamib ayaa dhicisoobay war naga tag Itoobiya maan meesha afgamib ka dhicisoobay waa galmudug war meesha afgamib ka dhicisoobay waa beledweyne war waa bogtaan caafimaad Allah in si warkayga dhageysta madaxweynaha maamulka maxarada Itoobiya iyo taliyada militariga Itoobiya ayaa la dilay magaalada Addis Ababa todoba hoobi ayaa xal ku dhacday wadankoodna internetka ayaa laga jaray war Itoobiya wax kama ogide Ra'iisul Abiy Ahmed oo hadda wuxuu yiri dadkii waxa iska dambeeyay gacan bir lagu soo qabanaa gacanta birta oo asheegaysid Soomaaliland la kasaaye Itoobiyan goormee la geeyay war hadda waxaas dhabo Itoobiya ka dhacay labadii nool kama hadlin miya warnimada wareer hawar mayka ma hodayaan saxan ku gud saan ku gud Abiy Ahmed hoobiyaalkii madaxtooyaha ka dhigaya ka horeeyeen usnaftiis ambaareeyay war golaha abwaanada Soomaaliyeed maanta waxay qabteen kulan taxsiin lagu sameeyo abwaan Singub oo loogu duceynayo marxuumka waxaana kulankaas ka soo qayb galay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo mas'uuliyiin kale warnimada waxaa leh taynayna dunyada hadii roona kugu deeqo inkastoo ku raaxaysataba waa laga ridiyay halana laguma raago adduun malaha si raace adoo wali rajo u qabay ka rafacantaay rugta noloshu waa aakhire la isku rarayaa tahayda la kala roon yahay ruuxdu way tagiyeen inkastoo wax noo reebay oo raad ka tagay muuqda Singub rubada ka u tiri qalbigu way ruxmanayaa riwaayad iyo gabay iyo wuxuu maasa kala raaray tabsho kuma abuuraynin iyo reero dirirtoode rasitumad la buunbuuniyo raadna ma ahayne rayul caalamko idil ayaa raalli ka ahaaye ifka laga ruqseeyay jannada raaxaha u tago rafaad iyo kulay lama tusiyo radan cadaabeede ibliis lama rafiiqiyo intaan raacin nabigiye rasuulkeeni ha u tago kulay waa sidoo rabay warragii oo isku yimid shaaha ee gata masajaabkiina maran walaal shantar muusikan aniga a'uudu billah walaaki ya rabbi wala shooda sharciga ilaas